qofka ugu sareeya dalkay gaartay asigoo si qadan wax looga dhaadhiciyo diiraaday arrin amni darro iyo dhibaato iyo waxyaabo noocaas ah iyadoo la adeegsaday dad oo wax magarata ah oo ama Facebook ah ama media kale ha ahaatee ayaa loo dhaxmariyo loo dhaxdusiyey marka waxaan leenahay arrinta caawa dhacday waxay ka dadajinaysaa kala go'a ummadda Soomaaliyeed kala fogeynta ummadda Soomaaliyeed caawana waxaa dadban loo fasaxay goboladii waqooyi maadaama gabar haliyad ah oo gooni isku taaga Somaliland sumad u noqotay halkan ay joogto markay Somaliland tagtana caleemo qoyan lagu soo dhaweeyay maadaama aqoonsigii ay idinka taale reer Muqdisho caawa si dadban xornimo u siiyeen ama ay ku dhawaaqeen gooni isku taaga Somaliland beritoolna waa inay reer Somaliland isku soo baxaan اعترافkoodiina la siiyay ana ku dhawaaqayo dhahay jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland caawana reer Muqdisho si dadban idin sii daayeen saxiixa oo waxa idin dhiman kaliya baarlamaanka iyo madaxtooyada